xaflad balaaran oo lagu soo dhaweynayay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeye Guute Sakiye Xuseen Axmed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska. xafladda ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaana. xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, fanaaniinta, odayaal dhaqameedka, haweenka iyo sidoo kale bahda saxaafadda. sharaf weyn bay tahay anoo afka wasiirka ku hadlayana iyo dhammaan wasaaradda arrimaha dibadda sharaf iyo karaamay noo tahay inaan caawa xafladan aan ka soo qayb galo. wasiirkana waa ku soo salaamayay hambalyo ku yiri qadiyadan hambalyo kaliya ma ahna shi elit way shaqaysatay runtii xooggeeda kala soo baxday dadnimadeeda iyo kartideeda. waxaan uga mahadcelinayaa madaxda qaranka ee garatay inay boosishinkaas muhiimka ah inay Zakiyo ay ku aaminaan. Sareeye Guute Zakiya waxa ay qatar ugu bareertay xilli ay daruufta iyo dhibka yaal Soomaaliya ay wada garanaysaan in ay wax u qabato dalkeedii. sharafay noo tahay in shaqsi qiimo leh ku soo dhaweyno daayar kuna dhiiraday dhulkii hooyo inay wax u qabato. waa gabar sharaf la qiimo leh. waxaan leenahay Zakiya welcome London gudaagii labaad sharaf ay noo tahay in ku soo dhaweyno. ugu dambeyntii ayaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeye Guute Sakiye Xuseen Axmed ayaa waxa ay uga warbixisay jaaliyadda waxqabadka booliska Soomaaliyeed. haddaa la socotiinba maalmahan dambe ama bilooyinkii dambe waxaan bilownay horta markii afhayeenimada laga dhigay in si toos ah la wadaagna bulshada howlgallada socda iyo wixii noo qabsoomay dhame oo dhan. taas waxaa moodaa in horta kalsoonida bulshada ay ku qabaan ciidanka booliiska ama ciidamada guud inay aad u sare kacday. waxaan ku sii darnay in aan u furnay number hotline ah sidoo hadda Ingiriiska haduu dhibaato ku qabsado 911 baa wacaysa ma Soomaaliya marka waxaan ka sameynay 991 number la yiraaha. numberkaas run ahaantii hadda wuxuu howlgalsan yahay umaleynaya muddo 3 bilood wax ka yar. run ahaantii bulshada waxayna la wadaageen xog oo aad iyo aad u tiro badan. sodomeeye shabaab baa lagu soo qabtay, rag oo anaga adoonayna baa lagu soo qabtay, burcad badan baa lagu soo qabtay. xataa waxay noo fududeysay inaad tilaabo ka qaano askarta ku xadgudba bulshada iyagoo shaqo ku jira. hadda isgoys lagu joojiyo oo askari maxaan ku rahay xadgudub ku geysto shacabka waxay nala soo wadaagaan 991 kaasitay wacaan tilaabana isla markii ka qaadnaa. marka bulshada iyo booliiska aad bay hadda isku soo dhawaanayaan. booliiskana waa halka ciidan oo run ahaantii si toos ah ku dhex jiro lana shaqeeyo bulshada. taariikhda booliiska hadda ka waraysanay kala ma garanaya laakiin 1943 baa la aasaasay. anagana xorriyadda waxaa qaadanay 1960kii 18 jir ah oo ayuu ahaa ciidankan markuu markin oo calankaneeta aan surnay. Xanaan Shidane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London.